bartiyaqaan bari uma korodhaa la yidhi wixii shalay la ahaan jiray ninkii iska ag fadhiya horumar ma gaarayo waxaa dhici karta dadka in si aan fiicnayn loo wacyigeliyo dadka in qabyaaladii la lahaa laga guuro lagu kiciyo dadka in lagu kala qaybiyo ururada qabiilo laga dhigo waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo dhici kara qofku markuu wax waayo inuu reerkiisa kiciyo waxaasoo dhan waa wax imaan kara laakiin waxaan kaga kalsoonahay wacyiga dadka sii kordhaya in dadkii noocaas ahaa suuqooda uu soo xirmayo oo dadku maanta wacyigiisa uu ballaaran yahay oo waxa dadka ay wax ugu qaybinayaan ay tahay in ay wax muuqda ula yimaadaan dadka isku daya mararka qaarkood inay qabaa'ilka kiciyaan ama ay dadka polarization ku sameeyaan oo nidaam runtii aada u khariban oo beryahan dambe soomaaliya aada uga socday runtii wuxuu noqday madhalays ninkii wakti kusii dhumiyana isagu unbaa waktiga ka dhumi doona waxaan xaqiiqo ah oon qarsoonayn oo siyaasiyiinta qeybtooda ay mararka qaarkood isticmaalaan oo ah waxay rabaan hadday waayaan inaan waxbaba la helin arrintaas maanta waxaan rajaynayaa aniga oo runtii halka baaq uga diraya siyaasadda noocaasa in laga waantoobo annaga naguma jirto inaan turunturayno sidii la ogaan jiray dadka siyaasadda ku soo baxaya oon cagta saarno waxaan rabnaa inaan fursadaha siino waxaan u baahannahay inaan waanino waxaan u baahannahay inaan dariiqa saxda u sheegno dariiqa saxdaana wuxuu ku jiraa xayndaabka sharciga ah iyo dowladnimada ayaa hagaya qofku inuu intuu khaldamo maxaa layla hadlay uu yidhaahdo runtii waa ceeb waana xadaar xumo dad laga hor joogsaday waa kuwaana ururadii siyaasadee ololihiina weli dowladda halkaha aadina mayna jiri cid la hor istaagay ma aragteen cid wax loo sheegay ma aragteen waxaan rabaa in dacaayadaha raqiiska ah oo dadkan mustaqbalkooda lagu xumaynayo in laga waantoobo ururada guul waxaan u rajaynayaa doorashadana inay si hufan oo nabdoon ay ku dhacdo